waxaad tahay qof wanaagsan qof nooceeda oo kale dunida ku yaryahay baa tahay qalbigaaga wanaagsan iyo qofnimadaada aad ka u sarreysan wax loo dhigi karaa ma jiro umana maleynaya meel walba aan dunida ka tago qof adigoo kale inaan la kulmi doono waxaad tahay xuur cayn ilaahay qurux iyo qiimo u dhameeyey dhagaha codkaaga maqlaa abidkood ku ilaawi maayaan daayaha muuqaaga arkaana meel kale ku doogsan maayaan waan ku faraxsanahay inuu qadarkaa la iga dhigay abtiga waanan ku faraxsanahay waqtiga ugu badnaa nolosheena inaan meel ku soo wada qaadano xusuusan abidkii xus doonana wada samayno waxaan doonayaa inaan kuu muujiyo dareenkayga ku aadan kala fogaanteena waan ka xumahay inaan kala fogaanayno waxaanan hubaa in shaki yar iga jirin inaan ku xiisi doono waxa kaliya oo nafteeda uga baqanaya inuu yahay inuu xiisaha igu dilo inaabti waxaan doonayaa inaan kaaga mahad celiyo wax walba aniga darteed u samaysay ka soo bilow cuntadaadii macaanida 3 waqti qolkayga igu keeni jirtay iyo maalin walba biyo saabuun u dhex gashay si aad aniga dharkayga u dhaqdo runtii waa abaal weyn oo abadkii ku hayn doono maalintan awoodiisa yeeshana kuu gudi doono waxaa laga yaabaa maanta inay tahay maalintii koowaad hadalla caynkan oo kale iga maqlaysid iyo cudurdaar taas waxaan kala siminahay ragga Soomaaliyeed ugama mahad celino dumarku wanaagga ay noo sameeyaan laakiin waan ku qasbanaaday maanta inaan kuu sheego wax walba niyadda kugu hayo waxaa laga yaabaa inay tahay chance ugu dambeeyaan kugu sheegi lahaa waxaana suurtagal inay tahay markii ugu dambeysay aan kulmayno inaabti ma doonayo inaan hortaada taagan aan ilmeeyo nabadgelyo iyo nooli kulante haddii aan noolahay mar kale waan kulmi doonaa maca salaama هدم تعلين عشقاء دقسوا نسون صنقون